maalintii koobaad ee ay ku aadan tahay taariikhda bisha tani ee milaadiga ah 8 bishii 7 1997 annagoo dhexda kaga jirna shirkii saddexaad ee ay soo qaban qaabeen ururada islaamiga ee Soomaaliyeed ee Scandinavian-ka ee ay hormoodka u yihiin kuwa reer Sweden muxaadarada maanta oo aan filayo sheekheeda inaynaan uga baahnayn aan sharaxaad dheer idinka siiyo oo wada garanaysaan Mustafa Ismaaciil ayaa waxa ciwaankeedu yahay mideynta camalka islaamiga sidii wada jir loogu qaban lahaa asaga ayaanu ka dharsan doonaa wixii nuxur ay xambaarsan tahayna waxa aan la ka rajaynayaa inaanu aad uga faa'iideysano isla markaana ayna gasho aan idinku sii daayay sheekha asagoo maadsan waxaan leeyahay falyatafadal mashkuuran بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وبعد والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته إخوتي في العقيدة iyadoo aanu malaynayo mu'tamarkan inuu yahay mu'tamarkeenu ugu culamo badnaa innaga kooxdeennan Scandinavian-ka joogtaana malaayin badan inuu soo fadhinay aan door bidi lahaa in badan culimada tirada badan la inoo timi maadaama inagu kolleyba aynu is ag joogjoogno in badan iyaga laga faa'iidaysto haddana mawduucan ay walaalada ii dhiibeen waxaan isku dayaan erayo kooban ka idhaahdo oo aan ka badnayn waxaynu in badan hore isu nidhi erayada kooban aan tilmaami doonaa wuxuu yahay ummadda muslimiinta ah horukaceedu iyo dadnimadeedu waxa uu ku xidhan yahay midnimadeeda inta ay midowdo ayuu ku xidhan yahay inta ay horu kacdo wuxuu ku xidhan yahay dib u dhaceedu iyo burburkeedu inta ay murantees khilaafto ee ay kala tagto waxa la hubaa kolleyba khilaaf inuu dhacayo sida walaalkayga horreeyay uu tilmaamayo kitaabka iyo sunnadana ku cad kolleyba khilaaf isagu wuu imanaya laakiin taa'ifadii siday kitaabka iyo sunnaha ee u nisbe sheeganaysay salafil umma ee u nisbe sheeganaysay ummadda muslimka ah taariikhdeeda dheer ay soo jirtay dadkii hogaaminaya a'immadeedii waxaa aad u muhiima inay taasi midaysnaato waxaynagaga filan qadiyadda muhiimadeeda inagoo waaqaca taariikhiga islaamiga in yar dib u akhrina burburadii ugu waaweynaa dunida muslimiinta waxay ku dhaceen in waqtiyadii dayaacooda ugu badnaayo murankooda iyo khilaafaadkooda tusaale ahaan haddaan soo qaadano dumitaankii baqdaad ay duntay ee tataarku qabsaday haddaan soo qaadano qudus iyo marlabaadkii faranjigu qabsaday ama kristanka gacantiisa ay gashay haddaan soo qaadano andalus iyo qurnaata markay gacantii gaalada dib ugu noqonaysay xataa haddaan soo qaadano xajarul aswadka iyo waagii la waayey dhowr iyo 20 sannadood baynu naqaanay inay qaraamita la maqnayd oo intay xajarul aswadka gebigiisaba qaadatay ay baxrayn iyo meelahaasi la jireen kullu hada ama waxaasoo dhammi waxay ku dhaceen ummadda muslimiinta ah waqti murankooda iyo khilaafaadkoodu uu aad u badnaa waqti midnimadoodu ay aad u yarayd waqti uu qof waliba ka kale isku dayay inuu soldaaro maalan qurnaata maalintay dumaysay 500 sano iyo waxoogaa baa laga joogaa hadda cid kale daayee intuu ninkii boqorkee meesha haystay ciidamo ka haystay oo dagaal tagay intuu dagaalka ku maqnaabay waxoogaa meesha joogay intay isu sii urursadeen ayay inaanu dhalay la heshiiyeen markaas la sii inqilaabo intuu isagu ku maqnaa frontka ayaa la sii inqilaabay markuu soo noqdana waxay noqotay inuu la dagaalamo iyo inuu iska daayo wuxuu doorbiday inuu maalqa iska qabto marka magaalo kale oo yana ciidamo ay ku ag xeeraayeen inuu iska qabto say sidii ugu socotay qurnaadana gacanta kuwa kala gashay waxaan leenahay marka ninka Soomaaliga ahi kolley mushkilaad soo gaadhay daraaddeed waxaad moodaa erayga midnimo iyo marka laga warramayo iyo wax khayaala inuu isaga haysto ama waxaan qurux badnayn waayo reerka xigu ayaa dhibay ama mushkiladu geystay ama uu ka xantaday ama mushkiladii ka soo gaadhay
marka ninka yidhaahda midnimaan ka warramaya maanta ummadda soomaaliyeed ama ummadda muslimiinta markuu arkayo tafraruqeeda kaannamaa rajul fii axlaamihi ku jira qof riyoonayoo kale ula muuqata laakiin waxaan u arkayaa xaqiiqadu waxay tahay qofka aan isku dayaynin inuu ka hadlo ama aan isku dayaynin inuu u socda inuu yahay ka riyoonaya fii caalami alwaaqic isagaa riyoonaya waayo nolosha kama suurtagal aha nolosha maanta la joogo ummadda muslimka inay kor u soo kacdo iyadoo aan midnimadeeda raadin iyadoo aan dadka muslimiinta ee camalka islaamiga wada midnimadooda dib ugu saciyin sidaa daraaddeed waxaan leenahay waa mawduuc muhima waa mawduuc ka hadalkiisu laga yaabo inuu dad badan dhibo laga yaabo midnimada la sheegaya inuu in badan ka dhadhansanayo jaraaxaad nabarre ku yaalla oo uu og yahay ciddii ku dhufatay iyo agagaarkiisa uu ka daydayayo inuu aad uga dareemayo laakiin raqma anfik waa kugu qasab inaad qadiyaddan ka warranto waa kugu qasab inaad in badan u fiirsatid waa ilaa tii carabtu ay sheegaysay dibiga madow maalintii la cununbaa kacadna la cuna maalintii wanaad cayn ka noqotay ayuunbaadna nabarku soo gaadhay ka kalena nabaru gaadhay inta kalena uu gaadhi doona waxaan leenahay markaa masaladani waa mas'ala muhima waa mas'alo aan ahayn dari saacad lagaga warramo waa mas'alo aan ahayn yacni wax maqan oo laga warramayo aan ahayne wax taagan oo u baahan in badan laga warramo lagu celceliyo u baahan waa masale baynu leenahay haddii loo eego mawduuca dusheeda ku dhajisan ee ah wasaa'isha ummadda muslimkaa loo badbaadinaya aynu leenahay waa keeda koowaad waxaan isku dayayaa markaa inaan waxyaabo yaryar ama nuqad yaryar tilmaamo asbaabta keenta inay dadka muslimiinta midoobi waayaan waxaa laga yaabaa qaarna inay khaariji yihiin qaarna daakhili yihiin ama qaarna inay dibadda kaga yimaadaan qaarna gudahooda ay ka yimaadeen khilaafka ummadda muslimiinta dhexdeeda yaalla ee u baahan in la mideeyaana waxaa laga yaabaa noociyaad kala gedisan inuu leeyahay asbaabtiisuna inay noociyaad kala gedisan leedahay maadaama wakhtigu aada u kooban yahay waxaan isku dayayaa markaa inaan bixiyo ishaaraat fii xuduudi cilmiya intaan wax ka garanaya ama wax ka arki karayo qofba inbuu wax ka arki karaaye inaan bal wax ka tilmaamo awalan waxaan leenahay dadku inuu kala nooc ahaadaa waa sunno ka mida ilaahay sunankiisa uu nolosha duldhigay ilaahay baa midabada u kala gediyey dhaqamada qaarkood u kala gediyey akhlaaqiyaadka yacni suu qofku wax u baranayo ama cuquushooda ama ashkaashooda ama waxaasi oo dhan waana awoodi karaya alle subxaana wa tacaala inuu waxoo dhan mid ka dhigo laakiin aayad daraaddeed baa looga dhigay waxaan leenahay khilaafka jira ama dhaca dhowr noocba uu noqon karaa khilaaf maxmuuda uu noqon karaa mid ammaanan ahlu xaqu da inay ahlu baatilka khilaafaan waa mid ammaanan waa mid qur-aanku inoo tilmaamayo ina almushrikiin walyahuuda walnasaara iyo wixii la noocay in la khilaafo xaqa ahlu xaqu inuu khilaafo ahlu baatilka waa mid iyadu macruufa oo maxmuuda oo kii la rabaya mid madmuumina wuu jira mid saa'iqoo suurtagal ahina waa jira mid waliba runtii wuxuu u baahan yahay inaynu wax yar ka tilmaamno laakiin waxa aan jeclahay un inaan haddii wax la tarkiisinayo ama waxoogaa aan isku dayo inaan isdultaago ka u dhaxeeya inaanan khilaafka saa'iqa ee mujtahidiinta dhexdooda iyo waxaas in badan ka sii warramay waman araad ciddii rabta mawduuca inay wax ka tilmaamtana kutayb aad u yar oo kollay anigu intaan akhriyay kii ugu anfac badnaa ee masalada ka warramoon baan u tilmaami lahaa waa rafci almalaam lilcallaama ibnu taymiya waa kutayb ayaan odhan karnaa aad u kooban koobnidiisaasi kuwa waaweyn oo dhan igala qiimo badan isagoo sidaa u kooban oo aad u yar ayuu kuwa waaweyn oo tiro badan leh ka faa'iido badan yahay saa daraaddeed ciddii u baahan isagaanu tilmaami lahaa waana wakhtigan casriga waaba iska tiro badan yahay cidda wax ka qortay iyo waxa laga qoray culamada mucaasiriinta ah khilaafka madmuumka ah oo ah kaynu leenahay waa ka u baahan in la zuuliyo si uu u dhaco tawxiid ilumma aw tawxiid alcamal alislaami ayaa muhima inaan focuska saarno ama se ku soo koobsanno waxaan leenahay asalku wuxuu yihi khilaafku ariiq lagu xalilaa buu leeyahy
ummadda muslimiintana ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu tilmaamay siday u xallili lahaayeen waana weers ka kooban fain tanaasactum fii shayin farudduuhu ila allahi waalrasuul ilaahay baa wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala haddii aad wax ku murantaan ama isku qabataan ama ku kala tagtaan waxa u celisaan un alle iyo rasuulkii yacni waxa weeyaan ummaddu marjiciyada inay isku waafaqdo haddii kow ummaddu marjica loo noqonayo marka muran yimaado la isku waafaqo waxa fududaanaya waxaan oo dhan xallintiisa dii marjica la isku waafaqo waxa fududaanaya waxaan oo dhan xal u raadintiisa laakiin mar kastoo muran dhacaba haddii meel kale looga dayo usluub kale la isku dayo in loo xallilo si kale in la isugu dayo in wax looga baadho wuu sii ballaaran doonaa waayo waxaan leenahay intan la xadidaa waa min raxmat illaahi subxaana wa tacaala cuquusha bini aadamku waa wax kooban in koobanna waxbay ka aragtaa waxay wax ku binaysay ugu weynina waa waxyaabaha ay kala kulanto xawaasteeda alxawaas alkhamsa waxyaabuu kala kulmo sida daraaddeed waxyaabaha xawaasta uu bini aadamku kala kulmo ee ku saabsiisan yacni nolosha la arki karo ee hoos geli kara taxta tajriba bini aadamku iskuma khilaafo walidaalik ayaa markaa dib ugu noqoto maalan miyaa aragteen saynis shuuciya iyo mid raasamaaliya saynis buudiisa iyo mid islaamiya ma jiro qawaacidda sayniskii ama qawaacidda practicalka ee waxyaabaha laabka geli kara ahi ma kala laha waxa soo saaray buudism iyo muslim iyo christian iyo yahuudi waa qaacida laabka haddii la geliyo saxmi karto fudud ama waxyaabaha ku saabsiisan waxa uu caqligu xallilo waxyaabaha caqligu taxliiliyo waxay doonaanba ha noqdaan dhaqan akhlaaq caqiido diimo dhaqaale waxyaabaha artska ay gaaladu yidhaahdaan ama waxyaabaha human scienceska qaarkood ay ku sheegaan ama waxyaabaha uun aan laabka la geynin ee caqliga bini aadamka lagu wadwado waxay kala leeyihiin suura ah caqligay ka timi mid waliba dhaqaale raasamaali dhaqaale shuuci mid buudism aaminsan mid wax kale aaminsan yacni suura bay wadataa meeshii ay ka timi waxyaabii caqliga lagu waday walidalik baa yaquul ibnu taymiya raximah llah wuxuu ku tilmaamayaa fi fataawi haddii la yidhaahdo buu yidhi waidaa radduu ilaa cuquulihim buu yidhi falikulli waaxidin minhum caql haddii la yidhahdo buu yidhi waxyaabaha kan yaan loo celinin kitaabka iyo sunnaha ee ha loo celiya cuquusha qof waliba caqligiisuu leeyahy anna caqlaa wataa adna mid baad wadataa kuwa kalena mid bay wataan marka way adagtay si meel la isugu yimaado dunida maanta waxa khilaaf dhex yaalaana waxa weeyaan marjacnimadaan la isku waafaqsanayn halka wax loo celinayo ayaan la isku waafaqsanayn kuwa isku waafaqay inay caqliga u celiyaana dee caqligii midayn kari waa walidalik bay yeelatay furuucdaasi aad u tiro badan leh laakiin ummadda muslimkaa waxaan leenahay waa min raxmat illaahi subxaana wa tacaala caqliga bini aadamkii wuxuu ka dhigan yahay waa laydhkan oo kale laydhkan halka loogu talagalay haddii lagu ifiyo wuu ifiyaa dad qol istidhaahdo ku ifi wuu ku ifinaya laakiin ka warran ninka yidhaahdaa xagga sare inoo saaro dunida laambadana ha ifiso laambadnimadii kama tegin iyo laydhkii iyo korontadiisii iyo baawarkiisii laakiin xuduud buu leeyahay xadkiisii meelaan ahayn baad rabtaa inaad ku ifiso alcaalam kullu ayaan electricity kusoo ifinaya haddaad tidhahdo waa waxaan waxba ka jirin laakiin haddaad tidhahdo qolalka yararee midmadow baan ku ifsanaya waa wax ka jiraan caqliga bini aadamku markaa xuduud buu leeyahay xuduuddiisa haddii lagu ifiyo waxbaa ka jira waxna wuu xallili karaa laakiin haddii xadkiisa la dhaafiyo oo wixii loogu talagalay inuu alle xallilo subxaanahu wa tacaala aad tidhahdo cuquushii ku xallil lama hagaajin karayo sidaa daraaddeed waxaynu leenahay asbaabta koowaad السبب الأول للخلاف هو الجهل السبب الأول سببت كواد مدنمada hortaagan umada muslimkiina midowdo ama adduunka kullaha badhe sababta koowaad waxaan leenahay waa jahli jahligaasina wuxuu ka yimi bay leenahay an almarjiciyya halkii loo laabmay khilaafka laga xalilayay baa jahli ku dhacay waa jahli mutabaq waa jahli murakkaba waa jahli aan jahli ka weyni jirin meeshii loo wada noqon lahaa marka laba garan waaye meelo kale loo noqdo waa jahliga ugu weyn al-umma al-islaamiyya haddii la rabo midnimadeedu inay soo noqoto وإن مركا ugu horeysa jahligaasi uu faydmaa manhajka iyo usuushiisa ku saabsiisan waynu faydmaa wa ilaa waxa ku dhacaysan kuwii ilaahay lahaa fanasu hadda mimma dhukiru bih faaghnayna baynahum al'adaawata wal baghdhaa abadan ila yawm al-qiyamah kuwiina nasara ba ilaahay yiri nasu hadda mimma dhukiru bih marja'a wixii looga dhigay bay qayb kamida ka tageen
dabeetana ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء عدو نمائي بغضاء وحيابا خلافك كرتب ما أيها الله كوي تحمي سبحانه وتعالى وحال سبحانه وتعالى ونقول المام يا قرآنك ولا تقف ما ليس لك به علم أصوشا سوحا لنا وأصل أنا أباهن شرح بدن أباهن عدي ربطي أصعينا يسأينا ومدى مسلم كاهي دي بمدودة وإنه أصعي سيد وعضين لها منهج يكون مدوبي لهايين وإنه أصعي سيدي أي أقبل لهايين مرجع أي مرن كودا كسولين كريان سيدي لو فيدي لها مدمدة وقاسيت ربضان له سيدي نقول لها كتابك يا سنة وكي حديثك ورالك يقول وآخرين يا إمام البخاري وورينا يتلمامي النبي عليه الصلاة والسلام إن دوني دا مركا علماء الله قدم يددكو هنا يلان دونان رؤساء أما الرؤوس الجهالة هنا يسميسان دونان علماء هي الرؤوس الجهاشة محاول دحية لابد عقلي لي وأنا لقى يا الرؤوس كان جاهل كي ذكاء كيسو أما إنتليجنس كيسو مرة كقار قدينه عالم كسرية هذه إنتليجنس ملوك حساطة ما يدي إنك عاقل كي أما وضيق أما مضح ضاي أي كيو جيس هدي لي يوم إيش أي كيو تهاي وحلقة يا بينه عالم كبكة أي كيو سرية لكن وحنا لنا وحاول دحية فرق يوحي بدنا مرجع موطة مدينة وحويان هودي سوما يعني ما وطه ما له علنية جهل بقى ضبالي سادراد ما أها مسألة إنتليجنس ما أها ضد وحقونا كده وحويان وحلا لا هي ماشي وحكن له علن لها إنتليجنس كي نودان هذين سؤر ورننا محلي لي كران إن أنا يحلي لي كران محاوط صلاة عالم كتاريخ الفلسفة وحلقة يا باين لها أيوه أو ريكوردد مكتهاي لا بقول يا كونتون سنة كهر تاريخ الميلادية لما كن يشان بقول سنة كهر هذا نيني لما كن وكلا مريس almost أفر كن يشان بقول إلا هيو أفر تا كن يشان تا بقول وحي عقول بني آدم فكريسي في باب الفلسفة كيف فكريسي واحد سكوا فقصيين مية درك قاعدة كستو مديدتشيو واحد كأي كيو بدن بابا يما دورنك كلا وده حاجة كلام بالو جدية وأون متناقضات حاجة المركب مديدتشيو بميت كلام با يما ده حاجة dabeetana midba midun baa laga daba geeyaa philosophy bal baa waxa dhigayo philosophy bal baa ka daba yimiyo wuxuu dhigay caynka iyo caynka ma huwa saysan kana midun baa ka daba yimaado saysan uquusha basharku waa ka waxay leenahay marka jahligu iyo dulmigu waa waxyaabaha quraanku ku tilmaamayaba inay yihiin aslu kulli shar وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا بالي الأمانة markuu insaanku xambaaray waxa lagu tilmaamay sababaha u geysay inay kamid ahay الظلم والجهل جهل قاس وحن لنا مرجعي لو نقونيي إن لفيدو أو عداد مرجع لو نقونيي كو ثاني الأمر جاهلكو الدلالة دسي في عنه ما فهمه أما سيد ظواهر تعادي يهدون وحبضا أفير في سنة وحبضا قمقات ولذلك حتى فقرضة أي إلهي وحكت المام يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف قفك جاهل كهينو مالين أيوه فقرض اللي يروح على الصيا وكان مهاجرين تدور سنة إذا عين كاسية أنت تدور سنة وحكان هاي أي إلهي وحكت المام يحسبهم الجاهل أغنياء جاهل كينو غني ومرني هذه يقول جاهل كده حكم كيسوا قلديون قفك أدو واحد جاهل سوا كا وسكت ضيو أنت بدن مغلوبكم بوري ده يعني سقل ضنوا بيوقع على أحلى يا مركها ووحى كواد إنه باهنا إنه ندب قلنا قلنا قضية اللبات لأن الخلاف كان مذموم كأبي سو كوبي كرتا وأصحاب العمل الإسلامي أو الأمة الإسلامية عموما أي سكيني كرتا وحويا بالليل هو البشر كتقنا ورنتي تيهر وحبة الكسيف فوقي الهوى ومرض نفسي لعدم الإخلاص وضدك حنون كود عاون إخلاص الآن تدرادي مركا إخلاص كاللوايو هو نفسهم بيدك الراعة إساقنا سيكوبا بين نوت المامنا وحين لنا يدك مسلمين تاي أعماشه ضدنا لوجه الله سبحانه وتعالى ولا قصديان وإلهي درتي وحقب تنبا مهمة أنا هروسي وذا وقت جاي يره سببت كلاسة هذا عام كعلماء التلمامة وحكم إذا التعصب تعصبku waa xaqa inta dhankaaga un inaad aragto laakiin inta kale in lagaa madoobeeyo
qofka kale waxa uu xaq wato iyo wuxuu inuu madow ka fuulo adiga intaadun baa ku muuqato intaad wadataa inay xaq tahay qaabkaasi caqliga u fakara wa min simati ahli alkitab min khisal ahli alkitab kamithai wa ilahi ba quraanka wuxuu ku leeyahay wa idha qila lahum aminu bima anzala allah qalu nu'minu bima unzila alayna wa yakfuruna bima wara'ah wa huwa alhaq musaddiqan lima ma'ahum ilahi ba wuxuu leeyahay subhanahu wa ta'ala hadii la yiraahdo war waxa la soo dajiyay rumeeya waxay leeyihiin anaga intiina lagu soo dajiyay baan rumaysanay wixii ka dambeeyay anagu rumayn mayno dad kale inta lagu soo dajiyo rumayn mayno iyadoo ba ilaahay leeyahay ka kale ka gaaloobayaan yahay wa huwa alhaq musaddiqan lima ma'ahu wa haq rumaynaya intan ay haystaan laakiin ma ogola idan waa sifa min sifati ahli alkitab inaad mutaassib noqoto oo xaqa inta xaqaaga xigtoon aad aragto laakiin aad arki kari weydo saaxiibka ama walaalkaaga kale xaqa uu hayo ama inta dhinaciisa taasubkuna inaad waxuun iskaga indhalaato oo aad dhan isaga taasubta waa wax falxun hatta walaw bi alqab diiniyana hatta han noqde yani saxaabada waxaynu naqaanaa yani nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tarbiyeyey acmaashii ay samaynayeen iyo waaqacaadkii dhacayay iyo dhibaatooyinkii soconayay dhexdooda tarbiyadu ku socotay sida daraadeed ayaa waxaynu naqaanaa maalin in laba nin oo shaqaale ahayo biyo ghazwat bani al-mustalaq inay laba nin isdileen oo shaqaale ahaa dabeetana dhibtii meesha ka dhacday eraya ay soo baxeen yaa lal muhaajiriin wa yaa lal ansaar la leeyahay اسم المهاجرين يا اسم الانصار ولا با مغعو محبوبه ولا با مغعو كميده كوي في عنايه كتابك كو سو رئيس سنده ولا با مغعو aan oran karno hadii alqaab la baxayo waa alqaabta ugu macaan hadii uu dadku la qabuna ma magacuna ma ismuun la baxayo waa ismada ugu macaan way waxaynu naqaanaa quraanka magacyo la baxo ku soo baa ururada waxa ugu horeeya muslim iyo mu'min iyo kuwa ilaahay ku sheegay dadka marka la kala saarayana wuxuu baa lagu kala sifeeyay faasiq iyo kaafir iyo صفات كاسي كلا ليه يا مؤمن يا مخلص يا كوا مهاجرين تي أنصار تدك صفات كا وتبي علامات قار كم يدوا هاي تدك مؤمن كيو صفات كلا هالمالا وطه أي أستان وهاي مع ذلك وين ناس مركز صوب بحري يا للمهاجرين يا للأنصار والنبي عليه الصلاة والسلام يقول جوابي إن يتهيأ بدعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم أما إن يتهيأ يعني وحن إسلامنا ماذا مرنا بكوب برنانين قفكوا إنه تعصبه ما هو وحبي يعني سيدة دراديد waxay leenahay waa in mas'aladatan iyana la fayda waxay leenahay marka mushkilaadka saddexda tan ka yimaada sidee loo xalili karaya mushkilaadka arrimaha kan ka yimaada sidee loo xalili karaya way haddaan mushkiladan la xalilin waa mushkiladaadu dhib badan waana dadka muslimiinta haday si kala tagaan waa waxa alla quraanka inta badan kaga digayo wala takunu kalladina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahum albayinat wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum at-tanazu' markii la sheegay fatafshalu balayn alfa'u li ta'qib wa tartib kaanama hadu kan dhaco kana u daba yaalo uma baahana wax kale de umada muslimkii qaadato tariiqaasi xasiilada ama natiijadu yara waa macruuf waa halkan buu ku dhacaysa waxaan leenahay waxa lagu xalili karaya dadka muslimiinta inay in badan mas'aladan ka fiirsadaan weeyaan waxa lagu xalili karaya in marka ugu horeysa mas'aladan mas'ala yar ma way waxaan leenahay dibta xataa cadawga dabada ka yimaada muslimku intuu manhajkiisa ku sugan yahay ee uu midaysan yahay weliga gaalo kama xoog badan ama may wax yeelin marka taariikhda dib loogu noqdo سيدة درادة دوحي لنا التأثرات الخارجية أو التأثير الخارجي سببتي سوا محي والتقصير الداخلي ما سببه يعني واد قاشان لاعضة قاشان كان يهدو تشيرو ورماها عدو كله يبورا كي سوا ستة لقنا مايو لكن ورا كعدو كان مرنا وكمودي كرا مرنا كمودي كرا حجابك هاي صح مرو كمودي كرا يود مركا كرا لونسنتي وكمودي كرا marka si aan midaysantiin idinku manhajkiina iyo wixii wada kuma mudi karo saadaradeed baa nabigu calayhi salaatu wasalaam tarbiyadu saxaabada siinay ama quraanka ku taalaba saxaabada ilaahayd sidaan u jabna anna hada marka yiraahdeen qul huwa min indi anfusikum baa leeyahay idan inda al-anfus illa tahliliya u baahan
وإن إن بدن كورمين قال كان سميسي مريكان با سو عري قولا كلا ku tagtay gaalada ilaahay ba sheegay inay isu tagi doonaan waligoodna soo wadi doonaan uma baahna sheegis quraanka ku taala inaanay hadaynin inaad amar raacdo ama ay ka takhalusaan mooyaane de iyagu ka wasiiladoodana waa la yaqaanaa ahdaaftoodana waa la yaqaanaa gaayaadkooda waa la yaqaanaa waa wadayaana ilaahay baana sheegay inay wadayaan laakiin iyagu waxa ay wadaan oo dhabi kuma taasiirin karaan وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا كما تأثيرين كران هدي أديك داخل كاغو يا هيمد محصنة وأولا تحصينات كاغا كوادو مركزية هي الوحدة أما مدنمو هدو كو محصون طيب وحين لنا مركز وحين نوبا هانا يكو إنا نحددنا منهجك هي مرجعية هي ماشي إنه نقونينا الحركات الإسلامية عموما إنك استلقى يابو في تفاصيل المنهج إنه خلاف سكتشره dadka badna saxayin badna khataaleeyin laakiin umuman waa aqbal sayin mala alkitab wa sunna ya salaf al-umma waxay wadan in loo noqdo waxay leenay qadaayaadka midnimadu aniga fi ra'yi sayugu muuqato wax lagu xalilay inta badan ma aha oo kaliya mu'tamaraat iyo ururo iyo isu imaatino iyo kan ee waa wax lagu xalilay baan leenay marka ugu horeysa aan tariiqi tarbiya qof la rabaynayo in la soo saari karo qof dad la noolaan kara oo wax la qaybsan kara oo muslim noqon kara oo toosanaan kara qof haday maamultay ka dambeyn kara haday ra'yi tay dhiiban kara haday xaq tahay cadayn kara haday waajibaad tay gudan kara haday la noolaanshiyatay la noolaan kara walaga yaaba mabaadi'ida iyo qoraalka waraqaa ku qoran inaynu isku waafaqno intaynu sunnimaadno لكن waxaynu u baahanay qofkii waxa kan fulin lahaa dadkii waxaan ku dhex fuli lahaayeen dadkii waxa kan qaadan kari lahaa sadaradeed aniga aragtidayda iguma muuqato xalku oo kaliya inuu yahay niqaashka iyo wada hadalka iyo isu imaatinka oo kaliya koo wuxuu igu muuqdaa awalan inaan dib ugu noqonno manahij tarbawiyya lil harakat al-islamiyya dib loogu noqdo in la eego al-fard al-muslim kan rabna inaynu soo saari karna iyo nooc noqonayo sida daraaddeed ba waxaan leeyahay qawaacid kamida qawaacida islaamiga haddaan marka hore qofka muslimka lagu tarsiikhin aqligiis haddaan lagu xoojin aad bay u dhib badan tahay inay inoo hagaagto midnimada aynu doonayno haddaan qawaacidaasi lagu toosinin qofka muslimka aqligiis waanu si dhaba u qabsanin aad bay u dhib badan tahay inuu tooso qawaacidan maxaa kamid ah alqaacida alula baan leenahay u baahan inaynu dad ku rabayno dad ku soo saaro waa al-ukhuwa fillah no qofka muslimkii garto qofka kale muslimka mu'minka inuu walaalkii ma aha qofka isku xarakada tiin ama isku aragti ka tihiin masaa'ilka qaarkood ama caynkan ma aha walaga yaabaa ina وسائل التغيير في العمل الإسلامي مختلف كلاتين ولا جيابا قضية سيدا الله قيمين ينا كلا أركتكو كلا نقطان ولا جيا ما كان لايك كلا أركتكو كلا نقطان معني إنه ما هنا مد ولا بس حين متكين والقلدية يوم بدنتي لكن هدنا معنى هذا ما هنا إذا ولا راهين حبايب نكو كلا قيف سنة أما أركتين نسكو هنا أما أركتين نكو كلا الرأي إني مرنبا مدو من كرتو قاعدة أصل كاية الأخوة الأولى الأخوة في الله وهي صفة قفك إنه إيمان ليه هيا أيو كم مضنيا حقا إنه إيمان ليه صفة أبو كم مضنيا وهي له يوحي إنما المؤمنون إخوة وآيات دمانتنا ولا تقانن قفك اسطوى مسلمين وأخريه لكن أنت وفير ستاير لأن الصفة إنه إيمان لقاها لي إيمان كمية كائن في نيس مياد هذا إيمان ماله ما يا ما ردو إيمان ليه ده وين ولا النقضة ردو إيمان ليه اللقوه بينه إيمان ليه هي وين ولا النقضة مسلمة ومدى مسلم كاهنة بعد قوة العقيدة حوق هذا اللي بعد حويان قوة الأخوة ثم قوة السلاح ومدى مسلم كان حوق هذا صدح لأنه بكسلي سيء أولا عقيدة دي إيمانكو دي انتو كبع سيء حيركو قارسي سيء إيا انتو كمرين هاي خزع بلاد كيه وحيابا خرافات كاه ثانيا انت ولا النمدو دو ايادك تهي وهي هدي ودا عقيدة سافية هاي ستان لكن متبكى كلامنا يعرفتها هيو وحنا في لمتيدين وحبضا نقول ميسان لكن مركي عقيدة توسطه ولا لماذا توسطه أي قوة السلاح حاجنا وحمد كره وران كاجنا مركز معنا سمين كره
saddexdaasi markay isbiirsadaan ayaa ummadda muslimka xooggeedu muuqan kara midnimadeedu muuqan kara walaalnimadu waa shay abuurka qofka bini aadamka ka mida marka hore insaanku bitabcihi buu da ijtibaaci yahay bay yidhahdaan waad ka jeceshay inaad walaal xesho oo waana min ajmali almacaani bay ka mid tahay marka samuhu joogo haddii aan ninka hadiyadaha is dhaafsataan oo kitaabada isu dirtaan oo cajaladaha isu dirtaan oo wax mashaakil aan walaalnimadu way macaantay